أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحناها مامول كجوبلان oo shalay galinkii dambe dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kulan gaar ah la qaatay laamaha ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii maalmo xiriir ah deegaanada maamulkaasi ay ka dhaceen falalidiga kuwa ammaanka madaxweynaha Jubbaland ayaa saraakiisha laamaha amniga waxa uu faray in si degdeg ah uga jawaab celiyaan dhacdooyin amni darro oo ka dhacay deegaanada Jubbaland oo ay ugu dambeysay qarax shalay lagu dilay gudoomiyaha rugta ganacsiga maamulkaasi waxa uu madaxweynuhu ku amray ciidamada nabad sugidda iyo booliiskuba inay dardar geliyaan howlgallada sugidda nabadgelyada deegaanada maamulkaasi isagoona xusay in loo baahan yahay in feejignaan dheeraad ay muujiyaan ciidamada ammaanka sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay taliyaha guud ee ciidanka Jubbaland iyadoo taliyuhu sheegay inay dardar gelin doonaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada maamulkaasi ee ka dhanka al-shabaab sidoo kale wuxuu si gaar ah u dul istaagay howlgallada ay ka wadaan wadada xiriiraysa magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow Ahmed Maxamed Laam Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa hore magaalada Muqdisho wuxuu ugu joogay ka qaybgalka shirka watashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hase yeeshee shalay galinkii dambe ayuu si degdeg ah dib ugu laabtay Kismaayo waxaana tagistiisa Kismaayo ay timid kadib markii uu dhintay Allah u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabbi Kaahin iyo dad kale oo shacab ah waxaana dhammaan dadkaasi ay sababsadeen qarax ismiidaamin oo fuliyay ruux isku soo xeeg walxaha qarxa